sorry insha Allah waan xiray hadda iska joojinaya duubistana marka maxaa sameynaa marka hadda Soomaali hadaan nahay marka waa inaan ku dadaalnaa maaragtay dawladeena ka imaata waxyaabahaas doorista deegaanka iyo maaragtay dhirta iyo hawdka iyo maaragtay wildlife waxay dhahan marka dadkan oo jeeda wadankooda si uu qurxoon yahay horta ilaahay meeshuu rabo maaragtay uu dhulkiisa waa meesha ahaata waa biyi kanada meelaha ugu biyaha badan bay kamid tahay winterana barafaan sanadkii dhan haafna ku fadhin ku milmana dhulku galaa marka cagaar baa soo baxa markuu barafku tago laakiin waxa ogaataan hadda dadkan ilaahay biyaha ugu ursaaqo marmar iyaga way marmar abaar way ku dhacaan iyagoo saas ah oo beeraha waa la saameeyaa laakiin waxaan ogahay dad waa dad maaragtay adduunkooda ilaahay ugu soo hormarinayo wanaagii samaystaan ama ay dadkooda gashtaan ama dhulkooda gashtaan oo ama xuquuqda dadka u dadaalaan waxaas ilaahay dhulku ku siinaa adduunku ku siinaa laakiin annaka Soomaali hadaan nahay cadaalad xumo naga jirto waxa naga jirto bulshada caafimaadkooda lama sugo xuquuqda bini'aadamka lagu tuntaa dhiigiiba la xalaalsaday maaragtay corruption-ka ugu badan wadamadan aad isaga ilaaliyaan corruption-ka iyo waxa maaragtay musuqmaasuqa marka annaka hadaan muslim sheegan musuqmaasuqa naga bato ilaa cadaabna keenana arkeena masaakiin dad munaafiq sidana mu'mina ku gubtay marka bal insha Allah wax saxnaya aan wax saxno ilaaha loo toobad keeno insha Allah waxaa jiray hilmaamay dadka baadiyahana miyiga dhirtay gooyaan magta dhirta ay gooyaan markay oodaha samaysanayaan qof baa taasna ka hadlay wax wanaagsan baan u arkay taasna meeshii soo degaan maadaama ay dhirtii dhan xaalufinayaan iyadana waxay u baahan tahay in wax laga bedelo ma fahmi